habeen wanaagsan halkani waa la yaabka TV qodobada warka la yaabka caaw idin hayna waxa kamid ah gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqa Muqdisho Engineer Riso oo ku geeriyooday dalka Qatar iyo dawladda Qatar oo lagu eedeeyay in ay ka dambeysay geerida Engineer Riso maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xukun dil ah ku riday rag ka tirsanaa Daesh madaxweyne Farmaajo oo cadaadis xooggan lagu saaray inuu dib u celiyo jinsiyadii labaad uu ka heystay dalka Mareykanka dagaal xooggan oo u dhaxeeyay ciidamadii taabacsanaa Muqtaar Roobo iyo Al-Shabaab oo ka dhacay duleedka degmada Xudur ammaanka xarunta gobolka Banaadir oo si weyn loo adkeeyay kadib qarax toddobaad ka hor ka dhacay xaruntaasi intii aad daawada wixii ahayn qodobadii warkeena ugu door karoona hadii aad nagu cusub tahay si joogto noola saaxiib oo subscribe saar channelkan hana hilmaamin inaad gambaleelka aad taabato si aad saaxiib dhow noogula noqoto warkii aad daawatay oo faahfaahsan ku soo dhawow Allah u naxariistay waxa gelinkii dambe ee galabta magaalada Dooxa ee dalka Qatar ku geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Riso oo dabiiqadii toddobaadka soo dhaafnay ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay xarunta dawladda hoose ee Xamar wasiirka yarada ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye ayaa warbaahinta dawladda u xaqiijisay geerida ku timid gudoomiyihii hore gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Riso ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray isagoona hadda ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho geerida ku timid Engineer Riso ayaa waxa ka tacsiyay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo kamid yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu ku tilmaamay in Engineer Riso ahaa wadani jecel horumarka dalka waqtigiisana inta badan uu huray horumarinta bulshada Soomaaliyeed madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in calanka hoos loo dhigo muddo 3 maalin ah ka oo loogu barordiiqayo geerida naxdinta leh ku timid gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Engineer Riso oo maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar meedka Engineer Riso ayaa la filayaa in maalinta Sabtida ay soo socota laga soo dejiyo garoonka Muqdisho si aas qaran loogu sameeyo gudaha dalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cadaadis lagu saaray inuu ka laabto ama dib u celiyo jinsiyadii labaad uu ka heystay dalka Mareykanka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta wuxuu dib u celiyay jinsiyadii labaad uu ka heystay dalka Mareykanka war qoraal oo ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee Villa Soomaaliya ayaa lagu shaaciyay in madaxweyne Farmaajo uu dib u celiyay jinsiyadii uu ka heystay dalka Mareykanka maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 1 Agoosto 2019 waxaa si rasmi ah idin la wadaagaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu celiyay jinsiyadii labaad uu ka heystay dalka Mareykanka hawshan waa mid soo socotay in muddo ah oo ay ku howlanayeen sharciyaqaano iyo xafiisyada qaabilsan jinsiyadaha ee Soomaaliya iyo Mareykanka madaxweyne Farmaajo waxa uu ku noolaa dalka Mareykanka muddo dheer isaga oo ka kororsaday aqoon iyo khibrad shaqo oo kala duwan wuxuuna Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ka noqday ra'iisul wasaare sanadkii 2010 dastuurka ku beelgaarka ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ogolaanaya in muwaadin Soomaaliyeed uu qaadan karo jinsiyad kale balse markii la doortay kadib madaxweynaha Jamhuuriyadda waa madaxweyne Farmaajo waxa uu si iskiis ah u bilaabay qorshaha celinta baasaboorka labaad ee Mareykanka uu ka haysto ka oo maanta dib u celiyay ammaanka xarunta gobolka Banaadir ayaa si weyn loo adkeeyay kadib qaraxii dabiiqadii toddobaadkii hore ka dhacay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Ibraahim Mahadalle ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka hadlay ammaanka xarunta waxa uu sheegay in isbedel weyn lagu sameeyay ammaanka xarunta dawladda hoose ee Xamar gudoomiye Ibraahim Mahadalle ayaa sheegay in aad loo adkeeyay ammaanka xarunta dawladda hoose ee Xamar kuna shaqeeyo maamulka gobolka Banaadir ka oo dhawaan uu ka dhacay qarax sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka oo soo gaaray mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dawladda Soomaaliya qaarkoodna ay u geeriyoodeen oo kamid ah gudoomiyihii gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Riso maanta ku geeriyooday magaalada Dooxa ee dalka Qatar Ibraahim Mahadalle ayaa sheegay inay socdaan baaritaan la xiriira qaraxii 24 bishii ayna ka soo gudubnay ka dhacay xarunta gobolka Banaadir isla markaana laamaha amniga ay dhawaan ay soo bandhigi doonaan warbixin la xiriirta qaraxaasi sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in shaqooyinka ka socda xarunta ay dib u bilowdeen isla markaana si caadi ay ku socdaan xarunta maamulka gobolka Banaadir oo ah goob si weyn loo adkeeyay ammaankeeda ayaa toddobaad ka hor waxa ka dhacay qarax ismiidaamin ka oo waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ka soo gaartay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya ka oo kamid ah duqii Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Riso oo haatan ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Dooxa ee dalka Qatar guud ahaan daawadayaal warkii aad ka daawanayseen channelka la yaabka TV intaas ayuu nooga dhan yahay haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar channelkan hana hilmaamin inaad furato gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee daawada waxyaabaha xaqiiqda ku saleysan ee channelkan aan soo gelino tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.